habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heesa waxa u dooron gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa weerar ku qaaday wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo la kulmay ganacsatada ka soo jeeda Galmudug gaadiid ciidamo u watay hogaamiyihii burcadbadeed oo la weeraray madaxweynaha Koonfur Galbeed oo gaaray magaalada Xudur ee gobolka Bakool gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicdi Somaliland oo ku baaqay in la joojiyo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kormeeray saldhigyo ku yaala Galgaduud iyo askari laba ruux ku dhaawacay Muqdisho daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heesa kuwada ugu door karoon haddii aad ku cusub tahay barteena YouTube-ka fadlan subscribe dheh oo guji gambalka si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka markaan soo galino barteena YouTube-ka daawadayaal markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa weerar ku qaaday wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa weerar afka ku qaaday wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya oo uu sheegay in ay maamulka gobolka Banaadir faragelin ku hayso waxa uu sheegay gudoomiye Yariiso in wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay doonayso maamulidda howlaha caafimaadka ee gobolka Banaadir loo igmaday wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay buug maamulka gobolka Banaadir uu soo saaray oo laga rabo inay qaataan dadka aadaya dalka dibadiisa waxana buugaas qaar kamid ah bulshada Soomaaliyeed ay ku tilmaameen caqabad bulshada oo lacag laga sameeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal sidan u dhignaa waa nasiib darro in wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka maseerto maamulka gobolka Banaadir oo ay si xaasidnimo u dhaqanto weligeedba caafimaadka asaasiga iyo buugga caafimaadka waa mas'uuliyadda gobolka Banaadir iyo dhammaan dhaqangelinta howlaha caafimaadka halka wasaaraddu ay mas'uul ka tahay siyaasadda heer qaran ee caafimaadka dhammaan gobolada wasaaradda caafimaadka ayaa weli ka hadlin hadalka ka soo yaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la kulmay ganacsatada ka soo jeeda Galmudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada Dhuusamareeb kula kulmay ganacsatada ka soo jeeda deegaanada dawlad goboleedka Galmudug kulanka dhex maray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo ganacsatada ayaa looga hadlay arrimaha nabadeynta iyo dhismaha dawlad goboleedka Galmudug oo dhameystiran oo loo dhan yahay kana shaqeeya danaha reer Galmudug ganacsatada ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre u ballan qaaday inay qaadanayaan doorka uga aadan nabadeynta dhismaha iyo horumarinta dawlad goboleedka Galmudug kulanka ayaa qayb ka ahaa kulamo wada tashi oo ra'iisul wasaaraha dalka oo deegaanada dawlad goboleedka Galmudug kula yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada si looga shaqeeyo dhismaha iyo dhameystirka hay'adaha dawlad goboleedka Galmudug gaadiid iyo ciidamo watay hogaamiyihii burcadbadeed ayaa weerar lagu qaaday dable hubeysan ayaa jidka u galay gaari uu la socday Maxamed Gafaanji oo kamid ahaan jiray hogaamiyaashii burcadbadeed iyo ilaaladiisa deegaanka Gawaan oo 30 kiiloomitir u jirta degmada Hobyo ee gobolka Mudug inta la xaqiijiyay saddex kamid ah ilaalada hogaamiye Gafaanji ayaa ku dhintay weerarkaas gaadmada ahaa oo ay qaadeen dable hubeysan waxaana dhaawac uu soo gaaray Maxamed Gafaanji oo kamid ahaan jiray hogaamiyaashii burcadbadeed ee Soomaaliya iyo mid kamid ah ilaaladiisa maamulka degmada Hobyo ee gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa warbaahintu xaqiijiyay dhacdadan waxaana la sheegay in kooxda weerarka geysatay ay ka soo jeedaan deegaanka ciidamada ammaanka degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa ku baxay goobta ay wax ka dhaceen waxaana dhaawac la geeyay isbitaalka Gawaan madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa gaaray magaalada Xudur ee gobolka Bakool madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Xudur ee gobolka Bakool safarka madaxweynaha uu ku tagay Xudur ayaa waxa qayb ka ahaa wasiirka caafimaadka maaliyadda amniga deegaanka xildhibaano taliyaasha ciidanka xooga dalka ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo kan daraawiishta ee Koonfur Galbeed madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in maalmaha uu ku sugan yahay Xudur in uu wax ka qaban doono baahiyaha ka jira degmada isla markaana uu indhayn ku sameyn doono sida ay u socdaan howlaha maamulka iyo ciidamada waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonaan adeegyada bulshada gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka isla markaana ay la kulmi doonaan
maamulka ciidamada hay'adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si guud iyo si gaar ahna ay isku arki doonaan ciidamaduna ay ku sameyn doonaan dib u dhis iyo tirkoob. madaxweynaha ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed ku ammaanay dagaalka ay kula jiraan ururka Shabaab inta uu joogana ay kooxda Al-Shabaab ka xoreyn doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Bakool. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ee Somaliland ayaa ku baaqay in la joojiyo wadahadalada Soomaaliya ay la yeelanayso Somaliland. Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa ku baaqay in Somaliland ay joojiso wadahadalada ay doonayso in ay dib ula bilowdo dowladda federaalka ee Soomaaliya. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya xiriirka ay u jartay dalka Guinea ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika markii uu booqday madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, isla markaana ay si weyn uga soo horjeedo marka Somaliland sidoo hadalku u dhigay. dhawaan ayay markii wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay gaareen dalka dhaca galbeedka qaaradda Afrika ee Guinea. taasi ayaa keentay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay soo saarto war-saxaafadeed ay ku sheegtay in ay xiriirkii u jirtay dalka Guinea. hase yeeshee dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xiriirka ay dowladda u jirtay dalka Guinea ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika. taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa kormeeray saldhigyo ku yaala Galgaduud. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa kormeer ku tagay saldhigyada ciidanka booliiska ee Caabudwaaq, Balanbale iyo Xiraale. General Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko ayaa xarumihii uu booqday kula kulmay saraakiisha saldhigyada iyo qaar ka mid ah ciidanka booliiska, isagoo si gooni uga wareystay xaaladda halkaas ka jirta iyo waxyaabaha ay tabanayaan si looga gacan siiyo. General Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, ayaa waxa uu booliiska Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay sii labanlaabaan dadaalkooda kana soo dhalaalaan shaqada adag ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. ugu dambeyntiina askari ayaa 2 ruux ku dhaawacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. inta la xaqiijiyay 2 ruux ayaa dhaawacantay kadib markii askari saarnaa mooto bajaaj uu xabad ku dhuftay wiil kale oo watay mooto bajaaj. xabadii wiilkaas ku dhacday ayaa ka dhaxbaxday mootada waxayna sii dhaawacday nin waday gaari dameer goobta marayay. goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in wadaha mooto bajaajta uu ku fadhiyay biyo wasaq ah askariga saarnaa mootada, waxaana la sheegay in taas uu ka xanaaqay askariga kadibna uu rasaas ku furay wadihii mooto bajaajta oo goobta ku dhaawacmay. waxaana la sheegay in goobta ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska, goobtana ay ka qaadeen 2 ruux ee dhaawac uu soo gaaray oo la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho. saraakiisha laamaha ammaanka ee Soomaaliya ayaan ka hadlin dhaawaca loo geystay 2 ruux ee lagu dhaawacay maanta magaalada Muqdisho. warkii oo daawadayaal xilligan idinkaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa.